دعوة كل صار برنامج كهلا بركة جناعسي أقول حياة جامعة سوماليلاند دعوة مشروع ترتم وحكو ترتم جامعة سوماليلاند جامعة عمود جامعة هرقسة جامعة برعو جامعة نوغال هي جامعة بدر أرضك كوجوليستا أما جروبك كوجوليستا وحيهليا مالجلين دقالة مالجلين تصوب بحين أيون بنك عالمي إلا ما جاب حي بريمير بانك أو كويا لما قال هذا هرقسة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة شيء أنا وقت كوتش على هاي الشيء توسكا ولا صعد باهين تكلدونا التلفزيون قرك سماه لو دكسو تبيو وحن مركل تشعلين دكسو لو برنامج شيء معلك تي في وقت كانوا كله أنا دكتور تلاقي لنا دعوة شيء وسو تبينه برنامج معلك تي في جا هبين كي ودم يسوي هبين كي حلاها وحن كوسوا قاضني كلنا أدو حس ما نروح مرة أرديد الهير سماه لنا كتر تميها لابورك جناحسيجا oo ay maalgelisay shirkadda caalamiga ah ee Premier Bank oo sanadka telefishinka qaranka Soomaaliland gacan la hadla ka siiyay aqoonyahanka kale barnaamijka ku hawlaa inay soo tabiyaanba taageerada barnaamijkan waxa aan ku soo qaadnay qaybaad xiiso badan waxa jecelahay habeenkan caawin qaybtii labaad halkaan idinka sii anba qaadno isla markaasina aanu idin soo madhigno tartan qiimo badan dhex mareysna aqoonyahankii lameynta laga soo xulay jaamacadaha dalka qaar ka mid ah iyo wajigii labaad ee daawasho wanaagsan دعوة كوسو دعوة برنامج معلك تيفي قاعد كذا وطن تلفزيون قرق جمهورية الصوماليلاند وحين ما تقول ذاك القيبت اللي بعد برنامج معلك تيفي قا إنه كوسو قادن دونا قيبت اللي بعد ترتن كجناح سجا أود حياة أرضية جامعات الصوماليلاند وحال كان كسو عندنا ترتن هذا قيمة بدن oo ay ku tartamayaan ardayda dhigata jaamacadka Soomaaliland gaar ahaan ardayda dhigata jaamacadda Amuud jaamacadda Hargeysa jaamacadda Nugaal jaamacadda Burco iyo jaamacadda Badar ardayda dhigata kulliyadda business iyo dhaqaalaha ayaa waxay ku tartamayaan hal abuur ganacsi iyo fikrad ganacsi maanta waxaanu runtii u gudbaynaa qaybtii labaad waxaanu tagaynaa jaamacadda Hargeysa jaamacadda Hargeysa dhexdeeda waxa ku tartami doona ardayda dhigata kulliyadda businesska ardaydaasi tartan aad u qiimo badan ayaa dhex maraya tartankaas cid ku guuleysata cid soo baxda waxay la tartami doontaa jaamacadka kale Soomaaliland ilaa waxaynu wadnay bishii muxuu ahaa almost March dhamaanteedii baan wadnay waxa soo codsaysan ogeyn ilaa 22 group oo misaddex ah waxa aakhirkii soo haray 4 group soo haray 4 group soo haray maanta halkan lagu kala saari doono hadii la yiraahdo marka project-kani waa project aynu soo aragtayna ku saabsanaa bal ardaygu inuu keeni karo hal abuur ganacsi oo cusub oo dalka wax ku soo kordhin karaya waana taa aynu doonayno in ardayda iyo waxa weeye wadankuna uu baahan yahay oo wadanku hadii uu businesskiisu xoogaysto macnihiisu waxa weeye dhaqaalihiisuna uu xoogaysanay tartankan maanta ay halkan fadhiyaan 40 group ee laga soo xulay groupada 22 group ku tartamayay inay ka mid noqdaan group la tartami doona jaamacadaha Soomaaliland 5 jaamacadood oo ku jirto jaamacadda Hargeysa oo kala ah jaamacadda Badar jaamacadda Amuud jaamacadda Nugaal jaamacadda Burco iyo jaamacaddeena groupka ku guuleystaa waxa uu la tartami doonaa 4 jaamacadood kale run ahaantii waddankeenu waa waddan dhaqaalihiisu aad u liito waxa loo baahan yahay afkaar dhaqaale oo cusub
si waddanka loogu abuuro shaqo abuur iyo hal abuur ganacsi oo cusub. cidda laga rabaana waxa weeyaan ardayda jaamacadaha. weliba mas-uuliyad gaara ayaa ka saaran ardayda kulliyadaha ganacsiyada kulliyadaha ganacsiga ee dhammaan jaamacadaha kala duwan aynu soo sheegnay. waxaan ardaydiinan idiin rajaynayaa gruubka ku guuleysta inuu noqon doono gruubka hantiya ama ku guuleysta maalgelinta uu bixin doono Premier Bank. horta waxa weeyaan waa service provider company kaasoo ka shaqeynaya in la qabanqaabiyo ama designers loo sameeyo eventiska kaasoo noqon kara corporations ama special individuals oo waxyaabahan badanaa rabna inaanu ka shaqeyno waxaa ka mid ah celebrationskaas oo noqon kara fair carwooyinka engagementska weddingska birthdayga anniversarieskaas oo noqonaya sanad guurooyinka ma ahaato sanad guuro shirkadeeda ma ahaato sanad guuro ay laba qof oo ay qabsanayaan oo kale educationka haddaynu imaano ifinada loo qabto graduationska oo kale meetingska loo qabto ardayda markay sameynayaan kadisyadoo kale conferenceskaas promotionska oo noqonaya businessyada markay product cusub keenayaan hadday noqon karto political xisbiyada markay qabsanayaan meetinadooda ama xafladahooda khaaska cultural fashion shows oo noqonaya meelahan ka shaqeeya dhaqanka waxay qabsadaan xaflado kuwaasoo kale inaanu iyagana laftirkooga u balangareyno waxaa jiro kale xusaska mararka qaar la xusayo maalin la xusayo qof taariikh ku lahaa waddankoo la xusayo kale sida loo balangareyn lahaa mostly targetkan focuska saarayna waxa weeyaan celebrationska iyo engagementska because dadka badanaa markay hadday noqoto in wedding ama engagement waqti badan ma haystaan oo waxaa laga yaabaa inay hawlahooga fara badan yihiin so halkay iyagu hawlahooga kale iska qabsanayaan annaguna waxaan u qabanaynaa inaan meeshoodii u balangarayno si fiicanna aanu ugu design garayno waayo waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadku qabsadaan marka ugu horeysa waxay noqonaysaa inaanu customerkii uu noo yimaado lala fadhiisto aanu weydiino siduu doonayo in xafladii loogu qabto inuu noo sheego saas iyo saasaan doonaya ama inaan anagu laftirka iyagu odhano ka waran haddaanu saa kuugu qabanno meesha saa ubaxyada noocaasa kuu keeno daahyada noocaasa kuugu xidhno ayay noqonaysaa markaan anagu nahay aanu qaban event planners waxaanu sameynaa inaanu soo ogaano hoteliskii inaanu tagno aanu soo ogaano meelihii hoolalkii lagu qabanayay inaanu soo ogaano inaanu meeshii arrange garayno loogu talagalay in xafladda meetingka lagu qabto waxaa kaloonu qabanaa inaanu exciting ideas qofkii u keeno oonu odhano iminka oo kale aanu tusno yani waxyaabaan ku qancin karno isaga ama isaga laftirkiisa fikradda madaxiisa ku jirtay oon u keeno in reality waxyaabaha kaloon qabanayna waxaa ka mid ah inaanu cuntooyinkii meesha lagu cunayay inaanu supervise garayno speakerskii iyo audiovisualskii iyo kamaradii iyo waxaasoo qalabadaasoo dhanna inaanu laftirkooga iyagana aanu sii eegno visionka iyagu waxa weeyaan inaanu noqono inaanu brand name aanu yeelno dadka gudahooga number 1 inaanu hano choicekooga clientska iyaga ama ha ahaadaan cooperative ama ha ahaadaan special events inaan anagu noqono choiceka koowaad ee ay kusoo fikiri karaan ama meesha koowaad ay kusoo dhiiran karaan markay xaflad qabsanayaan missionka iyagu waxa weeyaan inaan xafladaada kaaga dhigno mid qurux badan oo unique anagoo kuu keenayna beautiful arts farshaxano qurux badan si qurux badan oo waxaanu ku siin karnaa choices fara badan kaasoo kaaga dhigaya eventigaaga perfect as you have imagined sidaad adigu doonaysa ama niyadaada ku jirtay marka waxaanu iyo inaanu ku tusno hawlaha aan hore aan usoo qabanay
marka waxaan doonaynaa inaan kaa caawino inaad siday xafladaada u noqon lahayd sidaad adigu rabtay aanay enjoyable ay ku ahaato service-kayga aan qabano waxaa ka mid ah creating design event design meeshii lagu qabanayay xafladda inaan design-kayga samayno inaanu find sites halkii lagu qabanayay inaan ku samayno arranging foods iyo decoration-ka iyo entertainment-ki saddexdaana inaan ku arrange garayno waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka ka soo qayb galay inay marti sharafta timaaday attendiska waxyaabo inay iyagana qanciyeen aan samayno haddii aan ka bixino fikirkayagan ah Islamic camera movie markaanu qaadanay aanu isla eegnay fikir waxaanu ka fikirnay opportunity fikir ah oo ka jirin suuqa oo soo kordhin karno waayo business fara badan baa jira waxa laga yaabaa in competitors badan ay nagu yimaadaan oo competitors badan ay nagu soo baxaan sidaas waxaan ka fikirnay waxa bulshadu baahi weyn ay u qabto oo samayn kara gaabna u buuxin kara bulshadii anagana chance noo noqon kara aan kaga faa'iideysan karno fursadan ganacsi la noo barfaar garaynayo business-keegan waxa weeyaan modelkiisu waa service business hadaan service-kan u qabanayno eenu adeeganayna waxa weeyaan waa dumarkaas oo doonayno inaanu ka caawino oo u duubno kamaradi aroosyadii sermaniyadii other parties-kii kale ay dhiganayeen xafladii kale ay dhiganayeen ayaan doonay inaan ka caawino waayo markii hore ma haysan cid baahidan u buuxisa dhammaan cidda wax duubta oo dhan waa rag mana helin cid professional ah oo fikirkan duubta anaguna waxaanu u barfaar garaynaa oo u keenaynaa dumar skilled ah oo profession-kii aqoontan u leh u qaban kara shaqadan if you look haddii aan eegno qofku hadduu doonayo inuu samaysto arooskiisa uu noqdo mid beautiful ah oo aad u habaysan kaasoo ay habeen dad professional ah annaga ayaa u fududaynana service-kan adeegan qabanaa waa like this adeegaasanu qabanaa saasaanu ugu habaynana missionkeyga maxaa ka mid ah missionkeyga waxaa ka mid ah waa inaanu helno ama aanu keeno professional women in Somaliland kuwaasoo sameeya camera movie u duuba dumarka oo u facilitate gareeya waa dumarka hablaha problem aad u badan baa haystay marka ay u baahan yihiin baahidaas in loo fududeeyo oo loo qabto missionkeyga waxa kale oo ka mid ah inaanu samayno waay markaad business furato waan recaps meel yar oo ku kaaba oo income kale oo dheeraad uu ka soo gali karo waana samaysataa marka waxaanu ka fikirnay maadaama camera movie sameysanay waana ku darsano adeeg yar oo kale oo si simple aan u qaban karno sida car decorations for wedding oo kale aan u habeyn karno aroosyada vision-keygii maxaa ka mid ah vision-keygii waxaa ka mid ah waxaanu rabnaa hadda Hargeysa ka bilaabanaa ganacsiga laakiin next 5 years-ka waxaan doonaynaa ama next years-ka soo socda waxaan rabnaa inaan gaadhno all the regions of Somaliland dhammaan gobolada Somaliland oo dhan inaan gaadhno soo kale aan branches ka samaysano all Somaliland regions aan branches ka samaysano sidoo kale mishinkeyga waxa ku jira mar hadaan ku guuleysanay inaan one step qaadno aan ganacsi sameeyno aan ganacsi furanay kaasoo ah inaan samaysanay camera movie aan ku guuleysano another ganacsi inaan hore uga sii socno kan xiriir la leh kaasoo ah beauty salon oo ay habli adeegi si complete la ay nooga wada helaan multi service dhammaystiran aan u qaban karno coiffure-kii oo kale kamaradii wixii oo dhan aan meel kale si aan time badan wax kale aanay uga bixin arsidaanu habeynana waasaa ka mid ah insha Allah objectives hadaba every organization ama meel cusub kastoo la asaasaya objectives bay leedahay maxaa ka mid ah objectives-keega waxaa ka mid ah inay barafad gareyno high quality service quality-giis aad u sareeyo waayo service wala wada qabtaa laakiin waxa lagu kala tagay waa quality-ga so that's anagu waxaan doonayaa inaan soo barafad gareyno quality service quality-giis sareeyo waxaan barafad gareynaa professional women xirfad u leh aqoontan oo si fiican u duubi kara edit gareyn kara so hawshan xirfad u leh ayaan soo barafad gareynaa
marka tusmo waxay soo saari doontaa vegetable productions and fruit kuwaasoo la isku kuwaasoo noqon doona midho la isku haleeyo marketkayga aad u fiican doona vision kan leeyahay wuxuu noqon doonaa inaan noqono company ugu wanaagsan ee soo saara vegetable and fruit production-ka uu leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliland vision-kayga maragtida dheer aan u hiigsanayna waxa weeye alaabtan soo saarna ama vegetable production-kayga inaan u bedelno industrialized products sida sharaabiyadii iyo noocyada kala duwan vegetable hadaba company-ga products-kiisu waa laba isa saaran marka qola waa vegetable production oo la yiraahdo geed gaabta ama geedaha yaryar iyo fruit production oo iyaguna noqonaya geedweynta marka geed gaabtu iyadu markaan isku celcelino waxa ku soo baxaysa 3 bilood ugu yaraan geedweyntuna waxa ku soo baxaysa waqti dheer yihiin waxa ku soo baxaysa ilaa 7 bilood project-kayga waxaan ka fili doonaa agab district halkaas oo ku leenahay beer banaan oo aan ku sameyn doono mashruucayga competitive advantage-ka amba waxaan kaga duwanay kambaniyada hore suuqa ku jiray marka waxaan adeegsan doonaa waxa jira marka dadku wax soo garay inuu gaabo dhaxeeyo waqtiga soo qaaditaanka iyo waqtiga guritaanka marka waqtiga la soo qaadiyo waqtiga la gurayana waxaan isku dayeynaa inaan gaabkaas u dhaxayn transportation certificate anagu si u qabsano si gooni ah ama aanu markaan soo go'do midhahayagu inaanu transportation darka dirano waxa kala samaysan doonaa sales office ama meel aan waxaan ku iibino alaabteeda ku soo rogno marka taasina waxay keenaysaa in maxaa kambaniyada kale iyagu ma laha meel ay ku soo rogtaan laakiin waxa uu iibiyo dad u iibiyo jeeblayaal leeyahay ama brokers marka kuwaas meesha ka saari doonaa anaga beerta ka soo gurashadeeda iyo isku xidhnaan doonaan iyo iibkaygu tan kale waa business goals-kayga waxaan doonaa kuwa alaabtooda noqdo wax la isku haleeyo waxa kale oo ka qayb qaadan doonaa dhinaca muxuu ahaa hoos dhiga shaqo la'aanta ilaa ugu yaraan 10 qof ayaan ugu talagalay inaan ka shaqaaleysiino company-ga ama mashruucayga sidoo kale waxaan ka qayb qaadan doonaa dib u dhiska dalka waxa kale oo bixin doonaa waxaan noqon tax payers good tax payers aan noqono isku dayeynaa insha Allah market strategy-ga horta waxaan target market-kayga waxaan u qaybinaa waa 3 qaybood 3 qaybood oo kala qaybinaa waxa weeye inaan u kala qaybino muxuu ahaa individual customers-ka ama dadka si direct wax uga iibino restaurants-ka ama hoteelada vegetable fruit production-ka isticmaala halka saddexaad ka noqonay wada retailers-ka ama dadka waxaan si iibiya ama gobolka la hoos diraan ama degmo kala geeyaan price-kayga wuxuu noqonaa kuwa la isku haleeyo unit price system-kayga waxaan isticmaalnaa unit kasta cost-kiina galaan xisaabno aan soo helno Africa team management-kayga marka hada waxaan nahay 3 qof marka waxaan isku wartay mid naga mid ah ayaa isagoo aqoon fiican u leh ama technicality ah in la soo saaro si amba sida looga shaqeeyo beerta ama wax looga beerto isagoo awal ahaan jiray beerolo hore ama family-kiisuba uu yahay beer leh isagoo kaasi oo nagala mid ah group-kayga project name-kaygu waxa cafeteria ku saabsan cafeteria u gaar dadka diabetes-ka qaba ama dadkeena macaanka la nool waxaan ka koobanahay 3 xubnood aniga ah Wardax Masban Shukri Aadan Jaamac iyo Nimco Yuusuf on ku bahownay inaan soo saarno project-kan cusub ee ah cafeteria u gaar dadka diabetes-ka qaba haddaan idinka siiyo overview ku saabsan project-kayga first project-ka go'ay waddanka laga furo inaanay jirin restaurant ama cafeteria u gaar dadka diabetes-ka qaba oo ay ka heli karaan cuntooyinkooda special-ka ah waayo waxa jira dadkeena inta badan waa dad la nool macaanka ama diabetes-ka oo haysan meel u gaar ah wax ka cunaan marka waxaan rabnaa inaan u fududeyno adeega competitive advantage-kayga haddaan ka hadlo runtii ma jiro wax competitive advantage oo nala tartamaya waqti xaadirkan waayo waa business-kii ugu horeeyay waddanka laga furo project plan qorshaha ganacsiga ama cafeteria-gani wuxuu noo qorshaysan yahay marka hore inaan leenahay qorshe cunto oo ah waayo waxaan gacanta ku haynaa dad kala nool diabetes-ka rabnaa inaan cuntooyin u sameeyno inaan helno appropriate location meel ku habboon oo ka furi karno central oo dadkiina naga soo doonan karo heli karana investment nagu filan waa inaan helnaa equipment-igi ama qalabkii aan uga baahnayn restaurant-ka waa inaan helnaa skill worker waa inaan helnaa shaqaale xirfad leh runtii anagoo meal plan-kayga ama qorshahayga cunto anagoo og oo naqaana waxyaalaha u fiican ama best drinks-ka cabi karaan dadka diabetes-ka ama macaanka la nool oo ay ka mid tahay iblis-ka markaan ogaanay avocado-hii carrot-kii green food-kii green tea-gii waxyaalahaas oo kale oo ah waxyaalahan ogaanay inay cuni karaan cabi karaan
cuntooyinka fudud sidoo kale waxaan ogaanay in dadka diabetesiska la nool cuntooyinka ugu fiican ee u habboon ay tahay cuntooyinkeena cunto wadaniga ay ka mid tahay digirtiyo kale galeydii fishkii waxyaalahaas oo kale aan ogaanay markaan soo baadhnay cuntooyinkooga u fiican runtii waxaan samaysanay budget project-aygani intuu ku bixi doono $5,000 waxyaalahan u qorshaysanay waxaa ka mid ah equipment-iga ama qalabkaan isticmaalaynay hadday tahay talaajadii waxyaalihii wax lagu ridqeeyo sharaabka oo kale waxaan u qorshaysanay equipment-iga $3,000 in nagaga bixi karto inaan u baahan karno 3 shaqaale oo employee noo shaqeeyo oo bishii qaadan kara $100 aan heli karno inaan qolkii ama meeshan ganacsiga ka fulinayno oo centralka suuqa oo roomkii inaan bixino wax la yiraahdo deebaaji oo $1,000 waxyaalaha soo hadhay inaan u isticmaali doono cuntooyinkii magacaygu waa maxamed cabdi cawil waxa weeyaan la taliya dhinaca ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga waxaanu ku soo jirnay kala saarista iyo xulista ardayda jaamacadda Hargeysa ee kulliyadda businesska barnaamijkan kobciye ee uu soo diyaariyay Premium Banku waa wareegii saddexaad imika oo markii hore 22 group ayaanu kala reebnay maalintii dambana 4 baan ka soo saarnay maantana insha Allah waxaan filaynaa inaan groupkii ugu dambeeyay hal abuurka ganacsi aanu soo saari doonay u tartami lahaa jaamacadda Hargeysa waxaan filayaa annaguna inaan cadaalad sameeynay ilaahay baa cadaalad haya annaguna ilaahu eexna naga tigin baa idhaahdaa aqoon darrana hanagu cadaabin waxaan filayaa inaydun u haneyn doontaan intiina kale ee aan guuleysani oo rajaynayo inaad marar dambe iyo jaanisyo dambe aad guuleysan doontaan haddii la yiraahdo marka waxaynu hambalyeynaa uun qolada guuleysatay haddii la yiraahdo wassalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed cabdilaahi waxaan ka mid ahay macallimiinta jaamacadda Hargeysa gaar ahaan kulliyadda ganacsiga runtii farxad weyn bay ii tahay inaan maanta goobjoog u ahaado tartan ka dhaxeeya arday ka wada socda jaamacadda Hargeysa oo runtii waxa weeyaan waxa loo tartamayaana ay tahay hal abuurnimo ganacsi waayo waddankeena waxaynu ognahay shaqo abuurku uu iska yar yahay marka ardayda jaamacadaha ka soo baxaysa waxa muhiim ah runtii in iyaga laftooda awoodooda ku jirta laga faa'iideeyo iyaguna ay ka faa'iideeyaan bulshadana ay uga faa'iideeyaan marka hal abuurnimo ganacsi inay la yimaadaan oo wax weeyaan productionkii waddanka ay qayb ka noqdaan runtii waa arrin wax weeyaan aad loogu faano runtii waan u mahad celinaynaa qolyaha fursadan ina siiyay oo Premier Bank marka runtii waxaan idin xasuusinayaa wax weeye tartankan maanta aynu soo gabagabeynayna wax weeyaan ma aha tartan inaga dhaxeeya oo jaamacadeena dhexdeeda laakiin waa tartan aynu la galayno jaamacado kale groupka guuleysta iyo wax weeyaan ka imika aan maanta guuleysan labaduba way guuleysteen runtii waxaanaynu taageerinaa oo wada taageerinaa wax weeyaan hal group oo matali doona jaamacadda Hargeysa oo uga qayb gali doona tartanka jaamacadaha kale runtiina aan filayo aadna ugu kalsoonahay inay hormood ka noqon doonaan runtii hadalka wax weeyaan ma badinayo mana jecel inaan badiyo waxaan baan jeclahay in la isuna haneeyo runtii hawshuna de wax weeyaan intii aan halkan ku jirnay wuxuu qiimeynta aanu sameeynay waxaan ku saleynaynay wax weeyaan afkaarta halka keenteen iyo wax weeyaan sida ay bal inooga meel mari karto ee ay inooga iibsami karto iyo wax weeyaan waxa aynu haysano iyo capacity-ga imika fursadan ay ina siinayso sida ay u dabaqi karto marka runtii waxaan jeclahay sida maxamed ka dhawaajiyay wax weeyaan cadaaladda Ilaahay baa haya laakiin inaanu sidii ugu cadaaladsaneyd wax weeyaan aanu sameeynay runtii hal group baana de wada guuleysan karamayna laakiin hal group baa helay groupkaas baynu u haniyeenina bismillaah alxamdulillaah
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أفرت جروب هالكن ما أنت كنت ترتمي ورت waxay soo jeediyeen fikrad u fiican wax ku ool leh mid kastaba meeshiisa uu taabanayo mid laga maarmaya aanu jirin iyagoo wada wanaagsan haddana in la go'aamiyo ka ugu wanaagsan waxay u baahan tahay asturaad gaar oo ilaahay nagu asturayo bal cid aan isleenahay cidaasa wixii ugu fiicnaa nacamti wixii ugu macquulsanaa soo dhigtay oo afartan group mid kamid ah noqon doonta insha Allah waxaan leeyahay xataa haddii aad maanta halkan ka weydaan fikradiinu waa fikra shaqeynaya cid kasta oo aad ula tagtaan oo maskax caadiya si caadiya u shaqeynaysa rational u shaqeynaya waa waxay ku qanci karaan oo ay idinku maalgelin karaan familigiina hadday tahay ay idinku maalgelin karaan idinku haddaad wax iska ururisaan aad samayn karaysaan ardayda markaan wax u dhigayo waxaan weydiiyaa maxaad doonaysaa inaad noqoto markaad qalin jabiso inta badan waxay yidhaahdaan waxaan doonaynaa inaan hay'ada u shaqeyno waa fikir qaldan waxa weeyaan qofku marka uu jaamacad ka baxo waa fresh wuxuu hayaa maskax cusub xoog cusub buu hayaa wuxuu eager ku yahay inuu wax cusub soo kordhiyo adigu markaa isku day inaad samayso shaqo abuur cid kale aad u samayso marka fikirkii ahaa inaanu cid u shaqo tagno intaynu bedelayno dhahno innaga hayna loo shaqeeyo ama inagu haynu shaqaysano magacaygan ka tagay maxamed isaaq bare ka tirsan kulliyadda business administrationka jaamacadda hargeysa magacaygu waa saan sheegay waa cabdirashiid ismaaciil maxamed waxa weeye diinka kulliyadda businesska ee jaamacadda hargeysa sidaynu ognahay dhowr jeero hore ayaynu iskugu nimi tartanka noocana markii hore waa soo xaraysteen applicationskiinii amba waxa soo xaraysteen formskii aad ku sheegayseen xalabuurka ganacsi aad ku sharaxaysay baad keenteen team baynu ka soo saarnay teamkii haddana waxa ka soo baxay afartii group baynu haddana maanta halkan ku soo gabagabeynayna hal group oo jaamacadda hargeysa matala oo la tartami kara jaamacadaha dalka afarta jaamacadood kale ka qayb gali doona tartankooda guud ayaynu maanta iyadan halkan u fadhinay taasina insha Allah si wanaagsan oo qurux leh bay noogu soo gabagabowday waxa weeye waxaan ku dhawaaqayaa inaan hadalka sii badinayna halka group ee maanta matalaya kulliyadda businesska waliba jaamacadda hargeysa matalaya kulliyadda imka way dhaafto waxay matalayaan afarta groupkaas wuxuu matalaya jaamacadda hargeysa matalaya marka halka group baan ku dhawaaqi doona haddii la yiraahdo inteena kalena waxaan rajaynayaa in aynu iyagana hambalyeeyno inaynu tahnidino inaynu waxa weeye garab istaagno in ilaa inta ay halka gaarayaan la sii shaqeyno in idinkuna aydan ka hadhin idea fikirka keenteen uu noqdo mid sii socdo ka sii mar dhalisaan way waxaan qabaa fikradaha keentay dhamaantood may kala dhacayn si atartan adag buu ahaa tartan la isku wada dhow yahay ayuuha cidii faraheed baa lagu kala guuleystay waxaan qabaa in wax yar lagu kala baxay groupka guuleystay wax badan la isma dheerayn waa la isdaba taagnaa marka insha Allah waxaan ku dhawaaqayaa groupka koobaad ee waxa weeye ku guuleystay oo oranayo wuxuu groupkaas noqonaya amba uu noqday maamuus event planner بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa magacaygu waa Aasiya Cabdi Yuusuf kana tirsan jaamacadda Hargeysa khaasatan kulliyadda business administrationka ardayda siniyada sanadkan baxaysa waxaan ka tirsanahay groupkii projectiga ku soo baxay kobciye ee uu maalgelinayay Premium Bank waxaan wadnay projecti ah event planning oo aan rabno inaanu ku balan gareyno xafladaha kuwa khaaska iyo kuwa kaleba ee dadka wadanka gudihiisa magaalada Hargeysa laga qabto waxaan rajaynaynaa sidaan ugu guuleysnay kii jaamacadda Hargeysa inaanu noqonona jaamacaddana guul soo hoyno noqono groupka ku guuleysta tartanka jaamacadaha magacaygu waa Hawda Ismaaciil Maxamuud kana tirsan ardayda jaamacadda Hargeysa gaar ahaan fakalka business administrationka ardayda sanadkan graduate galinaysa والله الحمد لله aad baan ugu faraxsanahay inaan ku guuleysanay maanta tartan baayadaba soo socday kaasoo maalgelinayaan Premium Bank insha Allah waxaan rajaynayaa inaan guul soo hoyn doono jaamacadda magacayga oo ah Muna Maxamed Cabdiraxmaan run ahaantii tartanka jiray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mahad gaar ah waxaan u celinayaa Premium Bank anigoo ah ardayad ka tirsan jaamacadda Hargeysa gaar ahaan business administration
tartan badan baan soo wadnay waanaan ku guuleysanay aad baanaan ugu faraxsanahay daawada maanta waxaanu joognaa jaamacadda Hargeysa waxaanu wadnaa tartankii hal abuurka ganacsi ee u dhaxeeyay jaamacadka Soomaaliland maanta waxa uu ka dhacay tartankan jaamacadda Hargeysa gudaheeda waxaana ku tartamayay ardayda dhigata kulliyadda businesska tartankan waxa runtii maalgeliyay bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaana runtii fulintiisa ka qayb qaatay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo telefishinka qaranka Soomaaliland waa tahay daawadayaal intaasi waxaan kusoo gunaanaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeena macalinka TV-ga oo ahaa halabuurka tartanka halabuurka ganacsiga ee aqoonyahanka reer Soomaaliland iyo ardayda ku sugan jaamacadaha kala duwan ee dalka hadday noqoto jaamacadaha gobolada kuwa caasimadda iyo guud ahaanba meelaha ay ku kulmaan aqoonyahanka reer Soomaaliland waxaan jeclahay qaybtii labaad iyo barnaamijkeena macalinka TV-ga toddobaadkan intaasi inaan kusoo gabagabayno waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa bangiga caalamiga ah ee Premier Bank Professor Warig Ibrahim Arab barnaamijka kan idin soo taminayay Engineer Cabdiraxmaan oo sugan ku hawlanay habeyntii isku dubaridka barnaamijkan iyo dhamaanba hawlwadeenada kale ee ku sugan baahinta telefishinka qaranka Soomaaliland oo dhamaanteed ku dhaafina assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh